ولي waxaan dhex soconaa downtown Seattle halkan bidixdeeda hotelkan meeshan calamadu ku waxaa la dhahaa the West End. I used to remember because waa meeshaan ka qaraaban jirnay berikan Uber leedahay waxaa la dhihi jiray parking lot pimping markaasaad gaariga dhiganaysa intuu kaaga soo dhacayo especially early in the morning iyo marka dadku maaragtay airportada tegayaan lahan waa meelihii berigii markii Minneapolis lagu dilay ninka madooba mudaharaadadii berigii meelihii fara badan ee saameysay mudaharaadadu ereydana ka mid ahayd waayo ereydan waxaa ku wada yaalay stooro fara badan ka soo jeeda Old Saint waa store kale halkan ku yaala bidixdeeda la yidhaahdo Channel la yidhaahdo waa business area waa meesha magaalada isku haysa downtownka Sephora ayaa halkaa isaguna ku yaala midigteyda Ben Bridge ayaa bidixdeeda ku yaala Urban Outfitters. Theater. Hi, I'm Bruce, General Manager of Day and Night Plumbing and Heating. Over the past 70 years, I think we've seen every drain clog out there. If your pipes aren't draining from a small fix to a major repair, our sewer and camera inspection will show exactly where the problem is. I promise you, our experienced technicians will find the issue, the right solution, and do it at a fair price. Seed supply. Halkana seed supply na waxa ku taala midigteeda iyadna waxa lagu iibiyaa suurarka dumarka iyo ragaba. Nice. It's a nice place to come for shopping, inshallah, future. magaalada marka waa meeshay badanka halkan ay ku wada yaalaan need a passport kabadii like everything magaalada inaad luqluqayga inaad kala barato si aad u ignore garayso marka traffic iyo waxaas hadda I don't want to be that left ka leexanaya line-kii dheeraa ma rabin inaan ka daba leexdo so instead of that saana sameynaya aniga dhankaan raba inaan ka baxaa xaggan ay helaan weeye so downtownkii waan kasoo dhexbaxnay baasaboorka laga qaato qofkii baasaboorka la qaadanaya dhankan way midigtiina ka xigta xaggana loo leexanayaa anaga dhankan loo soconaa waxa weji waxaanu leexanaynaa bidixda go get a gas. I'm gonna show you the Capitol Hill
neighborhood xaafadda Capital Hill la yidhaahdo oo ku dhajisan downtown ka saaran. Capital Hill waxaa loogu bixiyey waxay saaran tahay buur bay saaran tahay on top of the hill. Se magaaladan Seattle Washington sideedaba waa magaalo buuraley buuro laga dul dhisay, so you have like a lot of hills up and down, you know. waa cajiib sida buuraha maaragtay uga dul dhiseen, guryaha uga dul dhiseen. halkan waxaa naga qabanaya midigteena dhakhtarkii weynaa maxay ahaydeen Harborview. waa dhakhtar dad fara badan oo magaalada degan oo Soomaaliyeed ay ku xiran yihiin. naga qabanaya midigta markaas 9th Street baa loo leexanaya. dhaafnika stationka caadi ka kala tegaynaa. areadan xaafadan marka waxaa la dhahdaa Capital Hill. badanka waxay u badan tahay waxaan arkaysaan bilnada arkaysaan badankooda waa dad residential la degan yahay, waa apartmentyo. I mean, last year, of course, we had the quarterbacks at the top of the draft, including 2 Heisman Trophy winners. So there was a lot of buzz about that. And in recent years, it's been that way. But this year's draft has been pretty quiet. That doesn't mean once we get to draft day that all hell won't break loose. But let's talk about Shedeur Sanders, because this is an individual, BJ, that you feel almost protected, I would dare say. That you feel like he's been under the spotlight. He was son of Deion Sanders. Obviously, had 20 years in Colorado, and now gets ready for the draft. And it just seems to be all kinds of mixed messages about his future in the National Football League. There's been questions about arm strength. There's been questions, I guess, even about character and his attitude and everything else. I mean, there's a variety of reasons you can knock a player. Again, I remember Randy Moss. When he showed up at the Heisman ceremony wearing sunglasses, and it seemed to suddenly hurt him in the draft. He fell into passing middle first round Minnesota Vikings. areadan oo dhan waxaa la dhahaa Capital Hill. dhanka hore ayaan u baxno, intaan sii dhaafno oo lightkan intaynu dhaafno xagga iyo magaaladii waxaanu ka gelinaa, hoostanu ka gelinaa, waxaanu u gudbinaa in xaafadda la yidhahdo maxay Rayner iyo xaggaas. streetkan waa 12th Street, saasuu u baxaya. kan gaasasku sidii wadankii maaha, waxa waaye waa adigu maaragtay serve your own, serve yourself. if you have car dad ka bixinaysa banaankaad ka bixinaysa adaa gashanaya, haddii kale you go inside cash dad si gudaad gelisa gudaad ka soo bixinaysa.
meeshan waa ummadda meesha waalan iskugu yimaadaan homelesska magaalada. Soomaaliya waxaan kula yaabay Soomaaliya markaan tagay ayaa waxay ku oranayaan gaas hadduu gaariga kaaga daato oo yaro gaas kaaga daato waa maxay aday waa in inta yaro gaas ku daato waa kala maxay aday kalarka bedelmay waa la rinjiyeynaya. war halkan anaga gaaska ugu shubana kun jeer buu samtaa anagu degdegsan gaas naga daataa haddana waxba rinjigu gaariga igu isma bedelo. waxaan ogaaday inuu gaaska waddanka la geeyaabo inuu yahay gaas maxay aday wasakh gaaska maxay aday bedelaya maxay aday gaariga rinjigiisa bedelaya hadduu caddaan yahay wuxuu ku reebayaa maxay aday laag yellow uu ku reebaya kalar kale hadduu yahay kalar kale uu ku reebaya ka dhigaya gaaskaasi miyaan wasakh ahayn you know. waa wax la yaabo. waddankan gaaskiisa siduu u qaali u yahay hadda halkaas u maraya waxaa laga yaabaa inuu gaarigan buuxiyo tankiisu waa 17 hadda wuxuu marayaa maxay 7 gallon laga yaabaa 4 gallon amba 5 gallon hore ugu jireen ya waxaa laga yaabaa inuu maxay aday $70 depends on the gas halkan intuu marayo wuxuu marayaa hadda gaasku 479 ayuu marayaa regular ya waliba haddaad maxay aday kaar ku bixinayso wuxuu marayaa 489 so 489 baan hadda bixinay gallon lacagtuna hadda maxay maraysaa almost $50 iyo almost maxay aday 10 gallon buu marayaa hadda. so let's see. So far 62, 63, 64. So 65. To which gas no horo which gaariga. Somali miyaa odagan okay let's go hit the road. so videogan intaana ku joojinayna insha Allah wanda sii socodka waan sii doonaa insha Allah more videos insha Allah show you إن شاء الله different angle مركان لو صعد في هذا كله دي له يرادو يوتيوب كانت ذيك لكعي أو مارتي تسبسكرايب كيو لايك تيو شير تميدي جرين انت هذا وها this is just like for fun spare time كيو like اسكتش عليها مرة chance hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.